كروكلامka macaaw waxaan ka bilaabaynaa caawa harabna macnaa كروكلام inaan isla degsano deetana waqtiyada soo socdana inaan كروكلامkaas inaan dabaqno mar walba insha Allah waxaan ka bilaabi doonaa konseptiyada ugu hore aan baran doono waxa waaye horta MBM wuxuu yahay sida uu shaqeeyaa MBM kaas waa node package manager-ka soo uu shaqeeyaa sidee loo isticmaalaa sidee muxuu ahaaye dependencies sidee loo keenay waxaan soo dhan isla fahmi doonaa kulli node package manager-ka marka luqadaha programming-ka 90% waa leeyihiin hada Java kale waxay leedahay laba nooc ay leedahay oo Gradle iyo muxuu ahaaye iyo Maven mid yiraahdaan labadaas way leedahay Java and Python mid pip yiraahdo pip inuu ahaa rajina in la yiraahdo mid la yiraahdo leedahay and sidoo kale to luqadaha dhamaantoodna saas oo kale waa inta badan hada muxuu ahaaye mid yiraahdaan Flutter-kana sidoo kale asagana wuxuu leeyahay mid YAML waxay yiraahdaan lagu qoraa dependencies-kiisa marka MBM kan asaga waa ka hadli doonaa waa muhiim asaga marka koowaadba qodobka koowaad aan ka hadli doonaa waa asaga okay marka intaan waxa waaye magaciisi waa qaybahan macnaha fundamentaliska waa macnaha okay fundamentaliska waa macnaha marka fundamentaliska kuwan aan kaga hadli doonaa MBM kaas oo kamid yahay labo waxaan kaga hadli doonaa muxuu ahaaye qodobka labaad aan ka hadlayno wuxuu noqon doonaa JSX wuxuu yahay sida uu shaqeeyo iyo muxuu ahaaye si in detail aan uga hadlaynaa insha Allah sidoo kale waxaan rabnaa inaan xilligan aan joogno waxaan rabnaa inaan ka hadalno JSX-ka sida Probiska iyo barnaamijyada noocaas oo kale u shaqeeyaan si yani detail aan isku dayno Probiskana inaan ka hadalno isku dayno insha Allah okay marka intaas waa asaasiyaadka ugu muhiimsan aragno inaan ka hadalno marka koowaad sectionka koowaad aan ka hadlayno marka wuxuu noqon doonaa intaan uu noqon doonaa waa fundamentaliska MBM-ka waxa ku jiro MBM JSX iyo Probiskaas inaan ka hadalno waa qaybta koowaad macnaha qaybta kale oo React aan si toos ugu bilaabi doonno waxay noqon doontaa muxuu ahaaye waxaan baranaynaa markaan si toos waxaan u galeynaa mar raba inaan waqti fara badan iska dayacno oo aan class component iyo waxaan isticmaali doonin inaad yani barato macno kuma sameynayso wax mar walba waxaad isticmaalayso baa la bartaa maana waxaadan isticmaali doonin oo wax noloshaada ka tarayn aysan jirinba inaad waqti iskaga lumiso ma baahan marka insha Allah hookies aan baranaynaa oo React hookies midkaana inta badan la isticmaalaa shaqooyinka inta badan asaga la isticmaalaa ama React functional component okay functional component can functional component okay marka nidaamkaana mari doonaa ma isticmaalan nidaam kale oo magaciisi object oriented programming camal ah oo classeska iyo barnaamijyadaas marabno laakiin waxaan baranaynaa muxuu ahaay functional programming marka functional programming ahaan oo isticmaalana ma isticmaalano muxuu ahaay class component waxa isku leh okay qodobka xigo aan arki doono marka qaybtan aan ka hadlayno hookiska waa inta ugu faraha badan meeshan aan kaga hadli doonaa kulli waxaan ka hadli doonaa muxuu ahaaye sida uu shaqeeyo sida loo qoro horta components React okay components React components okay React components qoranyahay bas okay qodobkaas waa ka hadli doonaa sidoo kale tana waxaan ka hadli doonaa muxuu ahaaye sida u shaqeeyaan hookiska kala duwan intooda badan inta la isticmaalo dhan waa ka hadli doonaa oo kamid yihiin ko use state okay use state sida waa ka hadli doonaa waxaan kaloo ka hadli doonaa use effect kaasna waa ka hadli doonaa si uu shaqeynayo iyo meelaha use cases loo isticmaalo use sidoo kale waxaan baran doonaa use layout effect asagana waan arki doonaa afar waxaan arki doonaa hookiskaas inta ku dhex jirnana waxaan arkaynaa insha Allah mid yiraahdaan wuxuu ahaay use ref okay use ref
sidoo kale waxaan arki doonaa use context okay iyo kuwo kale oo fara badan hadirtaan saas uma wada xasuusto magacyadooda laakiin mar walba baahida waxayna barto un baan baran doonaa mar walba marka laakiin intaan waa core-ka macnaha sheekada inta ugu faraha badan code-ka ugu faraha badan la qori doono waa intaana badana lagu laalaaban doonaa sidoo kale waxaan fiirin doonaa inaan samaysan karno kuwo custom ah oo custom muxuu ahaa hooks okay custom hooks si hadhowti muxuu ahaaye aan inagu waxyaabaha anaga markaas noqoseeyo code aan sii diyaarsanayno oo hadhowti hooks gooni noo ah anaga noo diyaarsan oo hadhowti aan isticmaali doono soo u noqdo macnaha marka custom hooksna waa samaysan doonaa marka intaas kulley waa hookskii iyo waxaan ka hadli doonay noqon doontaas kulley wixii kaloo markaas soo kordha aan u baahannahayna halkaan kaga hadli doonaa sidoo kale waxaa noo xigi doono qaybtan stylinka ah marka in la style gareeyo waxaan samaynayno mar walba waa muhiim stylinka waxaan arki doonaa muxuu ahaaye kulley noocyo fara badan ay jiraan stylinka waxaa jiro material UI kulley xoogaa waa waxay u baahan tahay in wax badan laisla sii fahmo oo material UI Google ba iskale Google-na nidaamka ay wax u develop garaysato in xoogaa la yara fahmaa muhiima kulley material UI conceptyaal fara badan iyo arag bixino fara badan ay isticmaalaan Google marka asiga kulley haddii loo baahan yahay waa arki doonaa laakiinse waa nooc ka mid ah muxuu ahaa stylinka laakiin inta badan dadka sida fudud waxaa la isticmaalaa kuwan kaleeto oo ka yara sahlan sida muxuu ahaaye bootstrap oo kaleeto waa la isticmaali karaa bootstrap okay bootstrap waa isticmaali kartaa sidoo kale waxaad isticmaali kartaa tailwind okay tailwind saan loo qora rajina asagana waa la isticmaali karaa waxaa kaloo isticmaali kartaa CSS-kaagii caadiga ahaa ama saas haddaa isticmaashid okay kuwaasoo dhan waa kuu shaqaynaya macnaha SCSS mayo soo qorbaysa malena marka kuwaasoo dhan waa kuu shaqaynaya laakiin inagu focus waxaa saari doonaa muxuu ahaa tailwind-kan saari doonaa tailwind-kan waa trending CSS waaye tool hadirtaan aad loo isticmaalayo waa marka asigaan focus ka saari doonaa React Native haddii loo baahdanaa sidoo kale tailwind asigana waa sidoo kale React Native-na sida hadirtaan web development-ga aan u isticmaali doonaa kaleta u isticmaalayna markaan joognana muxuu ahay mobile development-ga tailwind-kaas styling oo dhan asigaan u isticmaali doonaa marka intaas markaan isla fahanno waxaan noo xigi doonaa inaan concept kaleeto oo qolyaha advanced-ka ah inaan ku darno sida muxuu ahaaye waxay yiraahdaan state management okay state management focuska si toos waxaan u saari doonaa hal concept ayaan ka hadli doonaa ama hal tool ama library-ga aad ugu library-ga caanka ah aadka loo isticmaalo state management-ga JavaScript marka la joogo waa Redux-kana marka isticmaali doonaa insha Allah Redux-kaasaan focus ka saari doonaa intaas markaan kasoo dhamaano waa inta aan u arkaani ahaan inay muhiim tahay markii wax la develop garaynayo okay markii wax la develop garaynayo marka application laga shaqeynayo oo React ayadoo la isticmaalayo waa inta ugu muhiimsan wax lagu sameynayo React okay kulley bil aan eri laakiin waxaa laga yaabaa inay bil ka badato waa 2 bil ay noqoto wax macquul laakiinse kulley waqtigiisaan usoo koobi karaa waa isku dayayaa inaan soo koobo intaas markaan React kaga hadalno oo inta loo baahan yahay macnaha in wax lagu develop gareeyo marka intaas waa aasaaska koowaad oo React tiirarkiisa oo dhan waa inta macnaha aasaas yaanan dhin waa xitaa rinjiyada xataa hadii lagu daro okay marka waxba kamaanan tagin intaan waxaan rajeynayaa inay tahay intii wax lagu develop gareyn lahaa waxaan xigi doono marka intaan kasoo dhaxbaxno inaan sameyn karno testing okay inaan code-ka aan qornay inaan testing ku sameyn karno okay anagoo isticmaalayna library-ga la yiraahdo muxuu ahaa isanki testing waxaan rajeynaa mise just ahaa asigaan yani testing ku sameyn doonaa okay marka intaan waa yani React developer qofka markuu yahay waa inta
asaaska ah ama inta loo baahan yahay inuu yaqaan waa intaas markaad fahanto oo aan intaan isla aragno waxaan noo xigi doono hal shay inaan ku darnaan isku dayi doonaa framework la yiraahdo framework ama Next.js waxaa doonta badhe okay Next.js waa framework oo React framework waaye kaasna waan baran doonaa insha Allah oo aan ku soo xiri doonaa barnaamijkeena kulley asaga inta badan server side rendering si uu shaqeynayso iyo client side rendering get static props waxyaabahaasaan arki doonaa iyo sida uu shaqeynayaan iyo components kaleeto oo asaga leeyahana waa jiraan oo aad loo isticmaali doono sida image ko kaleeto iyo kuwa kaleeto aad u fara badan sida muxuu ahaa root risks iyo barnaamijyadaasna waa isla arki doonaa waxbaan ka tagay hadeertaan basaasaan wax ugu tagay laakiin waxay jiraan kulley library fara badanna waan baran doonaa mar walba library aan ku shaqeyn doonaa qodobka saddexaad aan baran doonaa meeshaan hookiska intaan joogno waxaa waaye react router dump okay react router sinkiisaan loo qoro doono siduu u shaqeynayo sida yacni pages liskaga gudbo 2 page 3 page sida yacni pages-ka la isku xiro sidii nidaamkii anchor tag oo kaleeto HTML-ka nidaamkaas oo kaleeto asagana marka inaan si fiican u fahmaan isku dayi doonaa muxuu ahay react router dump sidoo kaleeto waxaan sameyn doonaa qaybo fara badan aan sameyn doonaa qayb kulli protected routes ay jiri doono oo aan rabno inaanan dadka qof aanan authenticated ahayn ama aanan yacni log in ahayn inuusan gelin macnaha okay kuwaas marka protected routes ka waaye oo sida macnaha qofka markii username password la weydiiyo deetana pages kaleeto loo ogolaanayo jiraan ilaa uu geliyo username iyo password ama uu login uu ahayn uu yahay uusan ahayn macnaha looma ogolaan doono muxuu ahaay inuu pageskaas booqdo marka saa darteed pages waxaa diri doono oo aan isticmaali doono protected route ah oo aanan si qof walba uusan iska gelin ilaa qof authenticated ah mooye okay kaasna waa isla arki doonaa kulley library kaleetana waa arki doonaa oo markaas kuwaan u aragnay inay muhiim inoo yihiin sida kuwa waxay jiraan aan iconskan isticmaali doono font awesome ha ahaato ama react icons mid ku jiro meelaha aan isticmaali jiraa jiro iyo kuwa kaleeto fara badanna waa jiraan hadba midkii aad markaas aad u aragta in iconiska aad jeceshahay inay ka buuxaan aad isticmaali doontaa muhiimadda guud oo react intaan waay intaan haddaan fahanno waxaan rajeynayaa in concept fiican aan ka haysano react markaas kadibna aan wax un ku samayn karno